السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gabdhaha walaalahayga isoo weydiinaya barashada cilaanka. waxaan rabaa inaan la wadaago. waxaad ku baran kartaa cilaanka kow book baad soo gadan kartaa. Hadda book waxaa waaye drawing book. waxaa lagu talagalay in wax lagu soo sawiro marka waxa cilaanka uu ku sawiran. hadda hal idin ku qabta gacantaada ku sawiri, and then markaad gacantaada saa u dhigto oo ku sawirtid baad cilaankaad rabto inaad markaas samayso baad ku samayn kartaa insha Allah. design-kaad ka hesho ama kula fududaado waad ku samayn kartaa oo waxyaabo badan baad ku sawiran. buugga waad ku samayn kartaa oo waad ku baran kartaa oo qalin qori waaye. haddaa qaladid waad tiri. maxaad kaloo samayn kartaa inaad gacantan samaysato oo Google-ka ka soo dejisato, and then printer aad ku qabato. markaa printer la dhaho laminate loogu sii qabto waraaqadan adag oo yacni wax walba hadii lagu sawiro aan waxba soo bixinaynin inaad samaysato iyo inaad lafta ka order garaysato Amazon, eBay, meelahaas ama meelo badan oo kale Soomaalida waad ka heli kartaanba. intaa waad isku baran kartaa cilaanka. haddaad rabin cilaan qasoobi iyo waxaas yacni inta badan markaad barasho tahay inaa cilaanka qastid iyo waa sheeko yaro dheer. marka aniga waxaa idinku bogaadin lahaa ama 100% ila fiican inaad ku baratiin qalinka iyo buugga. waraaqada iska soo qaadatid maanta wax yar sawir, wax yar haddaad rabtid kan wareega bes maanta samee. wax yar way jiraan wali waan wadaa buugga oo ma dhammaynin. marka wax yar oo waxaad isku fiirin kartaa aad samayn karto aad yar. so design baad maanta kala saandhi wax yar intaan ka bilaabay. kanoo kale had isku day inaad sawirto intaad ka bilaabaysaa wareegiisaad samayni. haddana waad isku day inaad dhibic wax yar u yeesho. design-adu way badan yihiin insha Allah. aniga waa idiin soo gelin rabaa anigoo samaynaya ubaxyo yaryar oo aad isku day karteen. laakiin first waa inaad buug haysato plain-kan ah. waan helaysaan meel baad kasoo gadan kartaan haddaad Soomaaliya joogto, haddaad Kenya joogto iyo haddii aad qurbaha joogtaba. meel walba dunida ka joogto buug plain ah waa helaysaa, qalin qorina waa helaysaa. kow labadaas ku baran kartaa. design-ka haddaa keentid bacda wax dhiba aniga ma lahan, idinka xitaa idin lama yeelan doonto insha Allah. waa isku baraaweyn kartaan. bac yar soo qabso, ilmo yar hadduu guriga ku joogo ku baraaweyn ama gacantaadaba meel yar design yar ku fiiri inaad ku samayn kartid insha Allah. waana ku guuleysan doontaan. waxaan dhib loo marina weligeed allaheed leeftiisa lama helo waa ogtiin, ama aan dhibaato badan aad u marin. dadaalaa wuu gaaraa ay dhahaan Soomaalida. haddaad dadaashid marka dambe aakhir insha Allah waa keenaysaan. marka gabdhaha walaalada dhammaantiin waxaan idin leeyahay weligaan allahin rajo dhigina. halkaa kasii wada dadaalkiina insha Allahna waad baranaysaan. gabadha bacdi iyo weydiisato soo gelin. gabdho badan ay dhahan seen ku bilaabi karnaa ama ku baran karnaa saana aan ila dhib yar inaad buugga soo qaadato, waraaqada soo qaadato, samaysid tirtir ha cabsanin. ubax yar inta sawirto waa ii soo diri kartaa. Facebook-gayga caadi ah idin siinay haddaad rabtiin, messenger-ka igu soo diri kartaan. haddii kale Facebook page-ka igu soo diri kartaan. waa private gabdho bas waaye. so waa igu soo diri kartaan, waan fiirinayaa meeshaad ka qaladaan waan kaa caawin inaan kuu saxo insha Allah. keep going gabdhaha walaalada dhammaantiin waxaan idin leeyahay meelba dunida ka joogtaan. waxaan idin rajaynayaa khayr, caafimaad, bashbash iyo barwaaqo. ilaah iimaankaan nagu sugo insha Allah. cimri dheer ilaahay noo wada weydiinaya dhammaanteen. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu.